madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ahna senator ka tirsan aqalka sare ee dalka ayaa ka hadlay khilaafka dawladda dhexe iyo Puntland isagoo eedeymo kala duwan u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Faroole oo ku sugan Garowe ayaa dawladda waxa uu ku eedeeyay in ay faragelin ku hayso doorashooyinka dawlad goboleedyada dalka isla markaana soo hadal qaaday doorashadii ka dhacday baydhabo taas oo sheegay in faragelintii lagu sameeyay in ay ka dhalatay dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo sababay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac iyo mid burbur hantiyadeed waa sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu sheegay Faroole in dawladdu ay faragelin xoogan ku sameysay doorashadii ka dhacday Puntland oo ay ku bixisay lacag fara badan hase yeeshee ay ku guul daraysatay arrintaas. dhanka kale Faroole ayaa dawladda dhexe ku dhaliilay qaabka ay u socdaan arrimaha dastuurka dalka isagoo sheegay in 4 sano ee dawladdu uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka harsan tahay wax ka yar 2 sano isla markaasna aysan jirin wax dastuurka la taaban karo oo laga qabtay. hadalkan ayaa waxa uu sheegay senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole isagoo ku soo dhaweynayay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland senator ka socday aqalka sare ee baarlamaanka kana soo jeeda deegaanada Puntland halkaas oo ay gaareen